تضبيط بيش سديدات لبضة كون إيا لبعتنك وزيرك وزارة وحبرشة الصومال أحمد محمد الديرية أحمد تورنو أيا الله الله ورباهنته waxaanu xaqiijiyay jiritaanka buug ka soo horjeeda diinta islaamka oo lagu dhigo qaar ka mid ah dugsiyada waxa uu kale oo raaciyay inta laabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cidda ku cadaato arrinkaasi ama ku lug yeelata arrinkaasi waxa uu hareeyay oo xilka laga qaaday agaasimihii waaxda manaahijta ee wasaaradda waxbarashada Abdullahi Yaasiin Diiriye oo xilkaas soo hayay in ka badan 20 sano agaasimaha xilka laga qaaday oo warbaahinta la hadlay 29kii bisha 8aad 2020 ayaa isaguna dhinaciisa xaqiijiyay jiritaanka buugaas oo uu ku tilmaamay inuu ahaa buug kaabe ah oo aanu ahayn buug muqarrar ah maalin kadib markii ay taariikhdu ahayd 3 bisha 8aad 2020 waxa ka soo baxay wasaaradda waxbarashada Somaliland war saxaafadeed lagu sheegay inuu jiray buug cilmiga bulshada ah oo tusmadiisa ku jiro cinwaan tuhun dhalin kara sidoo kale war saxaafadeedka waxa lagu sheegay in maktabadaha qaarkood ay iibin jireen buugaas balse aan hadda lagu iibin Somaliland haddaba waxa isweydiin mudan oo aan wasiirka waxbarashada weydiinaya weydiinaha soo socda yaa ogolaaday buugaas in lagu dhigo dugsiyada qaar labo dugsiyada lagu dhigay buugaasi waa kuwa ma saddex maktabadaha iibin jiray waa maktabadahee maxaana looga joojiyay afar cinwaan tuhun dhalin kara maxaad uga jeedaan shan yaa tallaabo ka qaadaysaan ma dadweynihii ka hadlay dhinacooda jiritaanka buugga ka soo horjeeda diinta islaamka sida aad adiguba sheegtay mise kuwa ku dhigayay dugsiyada qaar intaas ayaan doonayay inaan idinla wadaago arrinkaas oo ah runtii arrin aad u muhiima yani waxbarashada ubadkeena iyo diinteena islaamka oo ah lama taabtaan oo aanay u oolin wasaarad ee inoo wada taalo dhamaanteen inaynu ka hadallo maadaama la sheegay buug inuu jiro buug aan waafaqsanayn diinta islaamka sidoo kale ubadka loo dhigi karaa waxa weeye maaha ubadka abayaasha dhalay iyo hooyooyinka dhalay kaliya dhammaan waa ubadkeeni iyaga qura ku hadlaymayno laakiin waxa weeye waa ka hadlayna maadaama arrinku saas uu muhiim yahay ayaa kaliftay inaynu ka hadallo weydiinaha shantaana waa mid ku maqan wasiirka waxbarashada inuu jawaabahooda nala wadaago Cabdimaalig Muuse Coldoon waan wax ka weydiinay buugaasi iyo sida ay culimada dalku uga mashquulsan tahay saameynta ay ku yeelan karto bulshada ayaa waxa uu kaga jawaabay runtii waxa weeye arrinkani maanta dee mu ahayn waa sax waa su'aal aad muhiim ah waa arrin noo wada yaala waxa weeye culimadu runtii arrinka way ka gaabisay inay si guud uga hadasho ay ahayd ma aha in qof iyo labo yani muxuu ahaa lagu daayo waxa weeye in dhammaan laga hadlayahay maadaama wasiirkii uu laftiisu leeyahay buug baa jira يعني أنا وافقسنين دين الإسلام أو لقول لي قدك سيدا قار يعني أرن كاس وحوها أرن هاي إنان هو رنتي لقاها مسلم وحوية ذاتك الدين تقوبها قد دعاتك رنتي وحوية يجنا فرين بان كان قدرنا إن أي واجب كودا قدان أو هاي دمان شعب كنا وحوية ومدي نو ذي يلا كور بيننا وحوية ومدي نو يلا وأن أولين عد وقد وفر يسمى إنه هدي هاي يضع إنه أرجنو إني سؤال ولد هذه oo aragno inaan laga jawaabin waxa su'aalaheeno dhan yani cidna wada fariisan inuu ku aamusimeyno yani waxa inay yani marna hadal yiraahdo marna hadal